iyadoo tan iyo intii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan uu dhagax dhigay wadada weyn ee isku xidhi doonta gobolada Togdheer iyo Sanaag ay si soo tareeyeen la riyaaqid farxadda hambalyeynta ay u dirayaan shacabweynaha ku nool guud ahaanba gobolada ay wadadaasi khusayso iyo waliba guud ahaan shacbiga Soomaaliland ayaa waxa maamulka dawladda hoose ee degmada Garadag oo hadhaca geedka gobka ah ee loo yaqaan dhidibka garsoorka iyo samataliska degmadaasi Garadag ay si weyn u soo dhaweeyeen ballanqaadka dhabta iyo go'aanka geesinimada leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan uu ku dhagax dhigay wadadaasi iyagoona sidoo kale mas'uuliyiinta halkaasi ka hadashay oo ay ka mid ahaayeen maayirka degmadaasi Garadag mudane Faarax Ciise taliyaha ciidamada asluubta ee gobolka Sanaag gaashaanle Maxamed Digaale Cooraaf taliyaha ciidanka asluubta ee degmadaasi Garadag maayir ku xigeenka degmada Garadag iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka waayeelka iyo waxgaradka degmadaasi ayaa waxay si isku mid u tilmaameen una cadeeyeen laga bilaabo waqtigan lagu guda jiro inay u diyaar garoobayaan siday qayb lixaad looga qaadan lahaayeen dhismaha wadadaasi sidoo kalena waxay si isku mid u sheegeen inay ku dhawaaqi doonaan guddi guud oo ka hawlgala dhaqaale ururinta miyi magaalo iyo waliba guud ahaan dal iyo dibadba iyagoona hoosta ka xariiqay siday mar walba goor kasta iyo saacad kastaba ay heeganka ugu yihiin ka qayb qaadashada dhinacyada horumarka kala duwan ee sanadihii ugu dambeeyay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxda ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan ay wadanka ku soo kordhisay ayna guud ahaanba shacabweynaha ku nool gobolka Sanaag ay u baahnayeen cid ka qaada furka horumarka dalka taasina uu nasiib u yeeshay madaxweynaha maanta talada wadanka ayaa waa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan biga madaxweynaha dalka uga dhigay guurihiisa u fududeeyayba ayaa bixiya waanu anaguna waanu ku hambalyeynaa si aalamiyadu intii ay tartoodo baan ugu taranay insha Allah bilmillahi alkarim hambalyaha waxa noo dheeraada maalka inaan ku taageerno wadadan waanu contribution ka galno waanu bilaabaynaa urunta arig iyo geelaba lacagta iyo dahabkaba waxaanu furaynaa weesaaqyada gabdhuhu xiran yihiin waxaanu soo ururaynaa idahayagii aanu caanka ku ahayn ilaahay soo dhaweynayna oo aan leeyahay isagana ilaahay ha noo hor yarayo ilaahay ha noo hor yarayo waxaan aad u jecelahay in laga dalo gobolada iyo gabdhaha laga baaro laga soo saaro waanu ku soo dhaweynayna وعبد الرحمن إسماعيل سعيد تلفزيون قرن Somaliland ألف وين يا Garadag